waxyaalaha kale ardada waqtiga ka dhumiya waxa kamida ii sheega waa taqaanaane mobilada ay wadataan mobilka mid baa wuxuu weydiiyay wuxuu yiri WhatsApp ka waran waxaan idhi waa inaad leedahay oo san kulahayn waa inaad leedahay oo san kulahayn maanta cilmiga oo dhan hadii aqoontii ay internetka taalo ma wax ka barto hadaa hadhow fiirinayo wax yar ma fiiriyo meelaha laakiin ayadoo aqoontii oo dhan ba laga helayo maanta waxaan wax ahayn waqti ku dhumi horta waajibkaada gudobal wixii waa waajib lagu lahaa gudo markaas kadib waxay anfaci doontaa laakiin hadii aan maanta YouTube ku jiro bal xisaabiya qaarkiin hadaa taqaanan Facebook gala YouTube gala waxa ka fiirisaa meesha ay ku qoran tahay tirakoobyada bishan meeqa saacadood baa gashay bishan kaliya inta saacada gashay sanadkan waqtiga kaaga dhumay meequu la egyahay marka qofka waqtigiisa u xisaabsan maalin kasta Ilaahay subhanahu wa ta'ala bini'aadamku sanadkan kii aha form 1 form 2 butay form 2 3 butay taas oo u socdeen qof kasta waa faraxsan sanadka dambe kuwa dugsiga sare ka baxaya dharka inay gashadaan ma jecla marna waxa oran jirteen Ilaahu yaa mar ay gariir dharkan soo ma dhahin Allah yaa mar le Ilaahay waa ku sii Ilaahu yaa mar iga form 4 iga bixiya Allah gaasar Ilaahu mar form 2 Ilaahu mar form 3 maalin dambe aad dugsiga sare ka baxdo Ilaahu mar leedan waa laga saaray Nabiyullaahi Muusa alayhi salaam way duceysay markuu duceystay oo ducadiisa Ilaahay ka aqbalay waxa la yiri qad ujiibat da'watukuma fastaqima ducadiina waa la aqbalay toosnaada maxaa ku xiga haraa'ina wala tattabi'ani sabiila alladheena la ya'lamun sallamadihin wala tattabi'ani sabiila ya'lamun haraa'ina kuwa waxba aqoon kuwa aan idinka wax idinka badin kuwa idinka liita dariiqood haraa'ina marka Ilaahay inta waa inoo aqbalay wax badan laakiin waa inaan yaa ku dayana yaa dayasho noo ah gabdhaha yaa u dayasho ah wiilasha yaa u dayasho ah baraha bulshada waxyaalaha aad ku arkaysaan maalin kasta eray waxba ku kordhaya waxba ka dhacaya waa aragteen adduunyada ragga maalin kasta dhar baa u kordha ilaa midka qoorta lagu xirto gabdhaha ma qaan adduunyada mid waxba ka sii dhaca laakiin qofka ardayga ah wuxuu yaqaanaa waqtigiisa u kala nidaamsan marka saddexaad waa mas'uul marka la andhahe waa mas'uul intii naas hadeer qof walba haduu hal warqad buugiisa ka jeexo oo dhulka ku taawar wax yar u ka jeexo dhulka ku daadiyo meeshaas ay noqonaysaa meel wasaq badan Soomaa bas ma aha qof mas'uul ah arday meel ku soo jooga mas'uul jidka hadaa aragto qashin yaala kii ka qaada waa arday meeshaan aad marayso qashin inaad ku tuurtay iska daayay kii ka qaaday waa arday fasalka hadaa gasho oo aragto wax dayacan kii toosinay waa arday gurigiina hadaa tagto saas wax walba u nidaamsan yihiin kuwa aan wax u dhigay maalin oo nidaamka iyo waxaas aan kala hadlayay markii ay soo galeen kadib oo kabaha ay banaan ku siibeen aan kabahooda soo sawiray kabaha markan kabaha meel ku siibeen seenahay nidaamsan yihiin masamidu la kabihiisu kala kor saaraa markaas ay nidaamkeena waa kaase bal fiiriya sawirkan tusay qof kasta qof kale kabihiisa kor istaajinaya meeshii la reeyna waa waxa ugu yar ee waa nidaamsan waxa ugu yar weey qofka ardayga ah waa qofkaas waqtigiisa u nidaamsan yahay jadwalkiisa u nidaamsan yahay waxbarashadiisa u nidaamsan tahay dhaqankiisa u nidaamsan yahay qofkaas anaga arday noqonaya qof kasta xasuusto feere qof xasuuso galaaskaaga kamid ahaan jiray oo aan dhaqan fiicnaan jirin oo maanta ka maqan galaaskaaga ma jiro yaa xasuuso bal qofkaas meesha ku dambeeyay qof aan waxbara laga waayay oo kadib iska tagay waxaan ana xasuustaa kuwa badan qaara ilaa hadda meelaha waxbarashada loogu yimaada ilaa hadda na soo waca ilaa hadda wax raadinaya maxay raadinayaan laakiin waxaan aqaanaa arday jaamacadda dhiganayay mid waxay bartaan macnaha caafimaadka midka kale caafimaadku isku galaas weeye laakiin mid waa wax bartaan kan kalena ma barto waxba
kii waa isaga tagay midna waa qalin jabiyay magaaladu ka shaqeystaa kan kalena number uu soo goostaa markuu u yimaado leeyahay xagee laga hayaa meelba ima fiyoobe halkaas ay igu daran meesha hunguriga ay igu daran numberkayga horta ii soo celi waxaan kuu soo galay in aan ku shaxaado yaa idinka mida oo jecel sida ardayga kugu asaaga ahaa inaad bari tiraahdo markuu wax barto oo wax noloshiisa wax ka dhigo yaa waa qofka jecel yaa jecelintiina ma jecelito ma kuwa badan oo meelaha daadsan shalay arday aar badan baa ahaan jiray laakiin dantoodii bay garan waayeen wayna ka dhaceen dantoodii qofku waa inuu dulqaad yeeshaa waxbarashadan isma ka siin doonto ilaa aad waqti badan siiso markasto aad daasho hadaa caawa is iraahdo soo jeed hurda isu habar wacanaysa marka iraahdo soo jeed wax akhriso hurdo dhan baa leh mayo maxaa loo akhrinaa wax ma la sax markaan rabaa wax akhriso ira telefoonna soo dhacaya mar waxaas inta u kaadino dul u yeelana inaan wax barano sida loo kala dulqaad badan yahay intiina hadda qoraxa fadhida soo maaha qorax qaar waxay ka fakarayaan qoraxda say isaga waa ilaalin lahaayeen qaarna waxay ka fakarayaan say wax u dhageysan lahaayeen soo laba kala duwana qofna qoraxda kaliya ku maqan yahay qofna wuxuu leeyahay waxa la sheegay marka inay qoraxayso ma ogaba waa la kala duwan yahay ka warraba imtixaanada ardada raalle iga ahaado inaa idin caayana mar rabee ma idin caayaa mar hal mar waxa meeshaan fadhiya ardaya wax tuugo ah miyaa ku jira maya la yiri maya waa la diiday waasha wax tuugo kuma jiraan ardayda waa diideen waa ka gelgisheen laakiin imtixaana la idinka qaadayaa imtixaankii marka la idin qaybiyay dhammaan galaasyo imtixaankii loo qaybiyay macallimiinta waxa la yiraahdaa ardadan ka soo baxa tuuga ma ahe imtixaanka iyaga galayay ka warraba ardadan wax tuuga kuma jiraan imtixaanka iyaga galaya shub macallin oo dhan soo bax kulli macallimiinta waa la soo saaray ayaa ka warrama hada tuuganimada waxa loo yaqaan kala duwan marka waxa la sameeyay waa la yaqaan Soomaa laakiin meesha lagu gaaraa waliga ma aragtay ardayga ag fadhiya oo leeyahay intuu warqadiisa fiiriyo war su'aal baa ka maqan 20 lagu saxaayo anaana haya oo leeyahay kii la fadhiyo wallahi aan rabin u dhaaranayo wallahi aan rabin waliga ma aragtay أنا سومرت أنا دارتي جامعة أسنا في الدنيا هذا ورقة ذفيريا أنا سؤال بانجرام ولا باتم بالغص حياة وعليه هي أنا هي لقاها اسمه هيرو لقاها تقول إذا أنا هي مليانو ما في رني أنت هانكي سؤال شيء ذا أقول لي أنت كرنا سيديت بانكيري أنا بكفي أنا أقول كله ما حارن كوجي ardada marka wax la weydiiyo intiinaan ardayga marka la ardayga waa qof wax baranaya ma yahay ardaygu qof ma cabsataano hada di su'aal la weydiiyo qof walba cabsana su'aal ya su'aalu diyaara intiinaan wariya su'aalu diyaara lama hayo war su'aal yaa u diyaara waxa laga yaabaa qof in su'aal la weydiiyo la yiraahdo magaca آدم ما دمت سؤال شيء ويدي مقعابة هذه ما أنا نقول بيننا عبسنا مركز أنا قال له سؤالين إلا معلمين تو إذا وركوا سؤال بدرة يا سؤال قب آمس يا سؤال قب آمس هذا سنة كان وحالك قيل لي امتحان دي والو دعاية وحاسة قيله adi waxaas kale iska daa asbaabaha loo dhacay taas iyo qolada is hayso dantaada maaha adi waxa dantaada adi maxaa taqaan Soomaha adi taada waa yee u taala qof iyo iilka loo wada lama kala qariyo aday ku taala maalinta imtixaanka la galo adiga way waa arki waqtiga waxa dhacay hadda sii bilowda waxaaga 10 sii gasho
meelo kale la isku diyaariyo aad gasho asaaskaada aad dhisto ma sha Allah imtixaan wuxuu ka qaadaya hadhowna tugniyo ma jirtee qaar badan waxay ku doodayaan mobilka laga qaaday arday dagaalamayso waxaan la yaabay weligii isma dhihi jiray qof baa ilaahay been ugu dhaartay waagi hore hadda laakiin dad badan arkay galaasan soo galay arday waxaan arkay darbiga ku qoraya qish war maxaa kugu dhacay aniga war adiba wallahi ana arag on qorin wixii inta la ibaray aawe dhaarta ilaahay ku xirnaanta alla ka cabsiga ilaahay inuu ila weynaado bini aadam ma kula weyn bini aadam ma kula weynaanay marka ardaygaas waxyaalaha aan aad ugu celcelinay waxa kamida oo arday aqoon iyo akhlaaq isleh marka helno aqoon qof leh iyo akhlaaq hadii laba arday kamida adoo sii jeeda haduu wax kugu tooro waxa ugu jawaabaysaa dhaqankee geerisa adoo sii jeeda qof arbaaxa dhabarkaaga dhuftay hadaa fiirisay waa mid saaxiibatihiin ma dhib male hadaa mid asixu isu fiiriseen waa dhabarka taabtay kuuma dhufane soo lama dirinaysa dagaal muxuu ka taraa wadankeena dagaal guud geeyay dhaqanka wanaagsan waa kaas ilama aha ardada hadda ay muuqato ma sha Allah waxaan islaha iskoolada marka tagto waxa tagi doontaa madax bidbidaya surweel la iska siibi karin laakiin ma sha Allah waa anu ila fiican muuqa waa arkay macnaha gudaha sheeyay kasi fiican muuqa waa arkay ma sha Allah macnaha inuu ka fiican yahay raba saas ma hartay qof maxaa lagu diray inta buug wada meel saar mid kale waxaan ku darayaa waxbarashada ma aha in aad buug xafido hada buug xafido buug labaad tahay wax kale ma ahid soo buug labaad oo koobiye ma ahid laakiin waxa baranaysa faham ina sameyn kartana ku day waxa gurigeena joogtaa korontadii baa ka tagtay dugsi sarafo boora ka baxday ama waa dhigata waxna kama taqaani nin iska reer baadiye ah oo laba bari la tuso korontada guriga jibid asaga ku sameeynaya adigoo yaqaan maantay hadaa leedahay taa meesha laabka iyo waxaas iyo boqol laab anaga soo aragnay inta soo laab iyadoo furan yihiin shay baaro oo laabka lagu jiro waa soo arkay ardaygii laabku gali lahaa oo laab ku jira ardada wanaaga inay isku saacidaan fiican wanaaga inay isku saacidaan waxyaalaha ugu fiican waxa waa tacaawun isku saa nimanka barooniga wata ama kan barooniga dhaliyay kaligiis ma soo dhisin barooniga Soomaalidaas keligii ma soo dhisin waa la soo habeeyay kadibna wax kale muxuu qabtay yaan idinka caayin laba birood meel taala u bambiira dhaxmariyay ani arday hada ah waxa eriyanaya waa aqaanaa noloshayda shay baa koow ah shay baa muhiim ah shay baa degdeg ah waa kala aqaan Soomaa noloshayda waxa mid walba waa la qaan maanta dadka beeshan fadhiya waxaan u maleynayaa qaar badan oo kamida in ay noloshooda wax badan ka bedelaan hadaa wax baranaysa ka dhig waxbarashadaada mid sugan oo la fahmo akhlaaq iyo dhaqan ku dabool uga dhig qurux hatta shinida waa aragtay shinidu ubaxa dhulka ku dhaca ma qaadato shinida way ubax dhulku yaala ba qaadato midka meesha fiida saaran bay wax ka raadaysaa dabaq waxa biyaha ku jira arday taas lagu yaqaan arday hadii maanta la sawiro ardayga wanaagsan waxa isku daydaan internetka galaysan ardayga wanaagsan bal ka akhriya internetkan maalin kasta aan ku jirno waa fiican yahay qayb ku fiican yahay laakiin qaybta wanaagsan aan ka akhrino kadib wax badan ma noo soo baxay aniga waxaan warkayga ku soo gunaanadayaa ardayga wanaagsani midka aan wax baran asaga u labisee midka aan wax baran adigu ma labiso midka aan wax baran ada akhlaaqada ka bedelee asagu akhlaaqada kaama bedelo bas saas maaha dharkaaga iyo wadato iyo waa kala duwan marka lagu arko alle waa arday wanaagsan walle